naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. haddaba barnaamijkan oo ah kii saddexaad taariikhdu waa 9 bisha 6 2026 waxaanu ku soo qaadanaynaa intaynu kala maqnayn wixii warar ah ee soo dhacay. haddaba waxaynu barnaamijka ku bilaabaynaa Iiraan iyo Mareykanka oo meel xun kala maraya. Trump oo sheegay inay weerari doonaan ciidankiisu Iiraan. maxaa la isku haystaa? waa su'aal weyn. waxaa la isku haystaa Trump wuxuu leeyahay diyaaradiina la ka soo riday ee Apache waxay askartaydu iyo xaqiijiyeen ciidanka iyo xaqiijiyeen inay Iiraan naga soo riday. sidaa daraadeed waa ka argoosanaynaa Iiraan iyaduna waa garaacaynaa. sheekadu marka siday u dhacday waa saas. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray. war goordhow soo dhacay waxaa la sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu war soo saaray cusub. waxa uu yiri Mareykanku waa inuu ka jawaabaa weerarkan. ciidamadeenu waxay hadda ii sheegeen in xalay Iiraaniyiintu ay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kacay helicopteriska ee la yiraahdo Apache iyagoo ilaalinaya marinbiyoodka Hormuz. labadii duuliye ee saarnaa diyaaradda qumaatiga u kacaysay ee Apache oo Iiraan ay soo riday labadooduba waa bad qabaan ayuu yiri Trump. waxba ma gaarin. laakiin Trump wuxuu ku sheegay warkiisan cusub waxaan ka jawaabi doonaa soo riditaanka diyaaradeena la soo riday Mareykanka diyaaradiisii Apache taasoo ku dul dhacday sida uu yiri marinbiyoodka Hormuz. jawaab ku filan ayaynu siin doonaa Iiraan sida ugu dhaqsaha badan. Trump marka muxuu leeyahay diyaaradeena ciidankeenu waxay ii sheegeen in Iiraan naga soo rid. saas darteed amaraan bixiyay nimankii waa ka arsanaynaa ayaguna waa xanuujinaynaa. labadii duuliye diyaaradda la socotay laakiin way badbaadeen. waxaas waa ka hadal waataan barnaamijkan kii ka horreeyay uga hadlaynay inaysan dhinacyadu weli faahfaahin ka bixin. laakiin Trump soo hormaray oo arrinkaa ka hadlay. laakiin waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah Trump wuxuu yiri ciidankayga ii sheegay inay Iiraan naga soo riday helicopter. ciidankii war soo saaraad ciidamadu ma laba kala ah ma saddex ciidana ma naqaano. haddaba markaan idin tuso ciidamada Mareykanka war iyaguna goor dhow ay soo saareen. war degdega ayaa la sheegay mas'uul Mareykana inuu yiri inay Apache soo riditaankeedii ula kac tahay iyo in kale shaki ayaa weli kaga jira ciidanka Mareykanka. sababtu maxay tahay? wargeyska la yiraahdo Axios ee Mareykanka laga leeyahay oo soo xiganaya mas'uul Mareykana wuxuu sheegay in baaritaanadii ugu dambeeyay ee ciidamada Mareykanku ay muujinayaan diyaarad drone oo Iiraan leedahay iyo diyaaradda helicopteriska ah inay isku dhaceen taasoo sababtay in diyaaradda Mareykanku ay burburto droontina ay halkaa ku burburto. haddaba xaqiijinta ilaa hadda lama hayo sabab rasmi ah oo cadeynaysa diyaaradda daroonka ah inay si ula kaca ugu dhacday diyaaradda helicopterka ee Mareykanku leeyahay. askartii shakiga qabaan uu leeyahay ninkan mas'uulka oo warbaahinta Mareykanka la hadlaya wuxuu leeyahay diyaaradda helicopterka ee Apache oo Mareykanku leeyahay iyo diyaarad drone ah isku dhacay inay marka ula kac tahay oo Iiraan ay u qasaday iyo in labadoodu ay si kama isugu dhaceen lama yaqaano. taasaa marka weli xaqiijin u baahan. odagan iskala soo boodaya ciidanka ii sheegay amaraan bixiyo waa la duqeynaa arrinka waa lagu degdegayaa uu leeyahay. ciidankii marka wuxuu leeyahay ninkan mas'uulka ciidamadii aan weli xaqiijin karin inay mutacamid tahay macnaha ula kac inay tahay sheekadan oo Iiraan ay ula kac u samaysay in kale Iiraan marka weli kama hadlin. Iiraan laakiin waxaa jira sheeko ku saabsan ninka Trump la yiraahdo markuu afka kala qaado in loo jawaabo. sharciga ka yaalay maalmaan dhowr nin oo u jawaabtaa jirta. waxaa ugu horeeya nin la yiraahdo Qaalibaaf. qaalibaafku waa gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cali Qaalibaaf la yiraahdaa. ninkaas waa ninka ka dambeeya nin caadi ma markuu marka gabgablihii waa weerarayna diyaaradaha ka soo riday uu yiri
ninkii isaguna soo jawaabay. haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay laga qoray Qaalibaaf, gudoomiyaha baarlamanka ama ninka madaxda u ah baarlamanka Iiraan ayaa warkan sheegay. wuxuu yiri annagu waxaanu sideennaba doonaynaa luqadda diblomaasiyadda, laakiin ogaada waxaynu ku hadalnaa luqado kale oo aanu si fiican ugu hadli naqaano yiri. erayada uu isticmaalaa ninkan caadi baa, jawaabihiisu caadi baa. wuxuu yiri annagu luqadda diblomaasiyadda waa fiicantahay, waa ka helnaa. macnaha keligeed inaan ku hadalna ma haye, laakiin kula luqado kalaan ku hadalnaa oo si fiican uga daran midan. soo socaalin marka ninkii taraam gabgable soo soco waa kaas. luqad kasta waa ku naqaanaa. hadaa bahashu dagaal u bedeshana dagaalay u bedelmaysaa, haddii aad bahasha u bedesho si kale u bedelmaysaa. marka luqad kasta waa kula naqaanaa waay. luqadda diblomaasiyadda laakiin aan jecelnahay oo noo fiican, laakiin luqado kale oo ka wanaagsan si wanaagsan uga hadli karnana waa naqaanaa. ereyga la isticmaalayaaba la yaable. marka sheekadaasu iyadoo halka ay mareen. marka Trump iyo kooxdiisu hadday weerar qaadaan iyo haddii kale waa arki doonaa, laakiin shilku sidaas u dhacay leeyihiin ciidamada iyo mas-uuliyiinta Mareykanka. Trumpna wuxuu leeyahay diyaaradda Iiraan naga soo riday waa ka argudanaynaa. xaal halkaasuu maraa. waxaan u gudbaynaa marka dhanka iyo lubnaanna waa ka kacsan tahay baashu. sheeko la yaab lahaa dhacday marka saacadihii lasoo dhaafay. waxaa la yidhi nin hubaysan ayaa dhanka xuduudka lubnaan ka soo tallaabay Israa'iil soo gal. askar meel taagneedu rasaas ooda kaga qaaday, wuu sii gudbay, kuwa kale ka hor yimid, naftu ka saaray. waxaa loo diray guuto dhan oo kumaandoosa oo tamshiid samaynaysa, lugaynaysa, oo cirkana diyaarado ay ka saacidayaan. markii hore waxay yidhahdeen ciidan lugta ah ayaa ka soo gudbay xuduudka oo na soo weeraray oo lugaynaya. sidii gab hal ninaa la arkay, halkii nin waa la toogto waa la dila, qof kalaa la waayay. 3 saacadood hal ninaa lala dagaalamayay. nimanku fulaynimo waa dhameeyeen. nimankan fulaynimo waa dhameeyeen. halkaas nin xataa wuxuu yaalla ma yaqaan, ma xisbullaahiya ma nin iska xanaaqayo lubnaaniyo qori soo qaataa, wax yaqaana lama arko. haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyey sheekadaa laga qoray, waxaa la leeyahay ciidamada Israa'iil ayaa waxay sameeyeen howlgal ay ku lugaynayeen oo weliba lug ballaaran ay ku sameynayeen kadib markii la sheegay qof inuu ku soo dhuuntay dhanka Lubnaan uu ka soo galay oo Israa'iil uu ku soo dhex dhuuntay. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa la sheegayaa in howlgalkaasi uu soo dhammaaday, qofkana uu ahaa qof kaliya. hal qof kaliya ayaa 3 saacaad halkan ka raadi, inta ka raadi, helicopter u kacay, asaguna wuxuu rafaadinayo soo rafaadiyey. marka waxaa leeyahay hal nin oo hubaysan oo kasoo gudbay xuduudka waxaan sameeyey. hadday guuto dhan oo xisbullah ay soo gudubto maxaa dhacay? ilaa Talaabiib waa iska soconayaan. marka sheekadaas halkaas iyaduna maraysaa. xaalkaasu marka wararkaas soo kordhay dhanka xisbullah iyaguna waxay sheegeen inay weeraro oo Israa'iil ay soo qaaday cirka ah iyo iyaguna ay ku jawaabeen weeraro kale. marka halka weeraro iyo weerar celis oo duqeymaha ayaa dhacay. ma dhicin laakiin wax ciidan lug ah oo sidoo kale iska hor yimid saacadihii lasoo dhaafay aagaas waxba kama dhicin. qaybta dambe ee barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa aayatullaahigii dhintay Iiraan, aayatullaahi Cali Khamenei. 3 bilood ayaa laga joogaa markii la dilay weerarkii lagu qaaday Iiraan. 3 bilood ku dhawaad, 3 bilood iyo maalmo ayaa laga joogaa. looma samayn marka aasweyn oo qaran, sababtoo ah Iiraan dagaal ku jirta. hadda marka xogaha warbaahinta qaarkeed waxay leeyihiin waxaa la ogaaday dowladdu inay aaskii qaran samaynayso hadda.
inkastoo xaalku weli xun yahay kacsan yahay madax fara badan aysan soo muuqan karin oo weli isgaadgaadka jiro heshiis weyn aanu jirin haddana hala qabtaa go-aan lagu gaaraa layidhi. haddaba markaan idin tuso wararka ugu dambeeya arrinkaasi warbaahintu ay ka qortay waxaa la sheegay goorma iyo xaggee lagu qabanayaa aaska qaran ee loo sameynayo Khamenei aayatullaahigii dhintay. haddaba sababaha dib loogu dhigay muddo 3 bilood maxay tahay? marka ma ka qayb gali doonaa aayatullaahiga cusub Mujtaba Khamenei oo ah wiilkii uu dhalay aayatullaahigii geeriyooday? ruushku ma waxay ka baqayaan in mar kale gaadmo lagu sameeyo aayatullaahiga cusub haddii howlaha kan uu markaa sameeyo uu soo baxo? dhanka kale ruushka waxaa leeyahay waxay ka baqayaan laftirkoodu in gaadmadii lagu sameeyay aayatullaahigii Iiraan oo kale in markaa madaxweynahooda lagu sameeyo. marka sheekooyin badan ayaa marka halkaa isku gadaamaan. marka waxaa leeyahay marka warbixinta waxaa la filayaa in aaska qaran la sameeyo aayatullaahiga dhintay bishan islaamka aanu ku jirno Dhulxijja la yiraahdo dhammaadkeeda ama bilowga bisha Muharram ee soo socota. weliba waqtiyada waxaa la rajaynayaa in lagu aadiyo shiicadu ay aadka u dabaaldegaan oo markaa waqtigii Xuseyna la dilay iyo ay sameeyaan waqtiyadaas oo kale in la sameeyo. dadku waxay isu diyaarinayaan inay dhar madmadow qaataan oo markaa ay muujiyaan murugo aayatullaahi. laakiin waxaa shaki weyn ku jira Mujtaba ma ka qayb gali doonaa aaska qaran ee aabiis loo sameynayo? marka warbaahintu waxay leeyihiin suuragal ma aha, heshiis lama gaarin, marka ninka aada hadda loo ilaalinayaa. xaalku waa halkaas. waxyaabaha la yaab kale marka waxaa ka mid ah warbixinta ku jirta maalmihii lasoo dhaafay aada loo ilaalinayaa ninka la yidhaha Putina wuxuu ka baqayaa weeraradii gaadmada ahaa ee lagu dilay aayatullaahigii Iiraan oo kale in wadankiisa inta lagu soo qaado lagu sameeyo. marka ruushka laftirkooda gaadmadaas ninkaa lagu dilay ma sahlaneen ay leeyihiin. marka taasoo kale inay dhacdaa laga baqaa. marka wararkaas ayaa ugu waaweynaa qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka ayaynu maraynaa. qadar xayeysiisa kadib waxaan dib u eegaynaa wararka soo dhacay intaynu barnaamij